السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawareysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada idinkugu talagalnay saakay oo subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 22 Abriil sanadka 2025. barnaamijkeena saakay waxaan idinkugu hayaa qodobo aad u xiiso badan iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay warbaahinta saakay ay ka hadlayeen aynu idinkaga soo ururinay. haddaba wararka saakay aan idin hayo waxaa ka mid ah arrin la yaab leh oo ka dhacday xuduudka u dhaxeeya Gaza iyo Israa'iil. talow maxaa ka dhacay baad is leedahay halka sheeko cajiib ah warbaahintu saakay ay aad u hadal hayso ayaan idin hayaa. waxaa sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa Mareykanka iyo Iiraan oo rajo ka muujinaya wadahadaladii dhexmaray iyo kuwa soo socda in natiijo laga gaari doono, iyo Israa'iil oo ka walaacsan inay heshiis gaaraan Mareykanka iyo Iiraan. talow maxay rabtaa Israa'iil? iyana barnaamijkan ku faahfaahin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu haynaa ciidanka Israa'iil oo xalay roondo ku marayay meel ku dhow xuduudka Masar oo rasaas lala dhacay. haddaba yaa la dhacay rasaasta? maxaase soo gaaray? warbixin baan iyana idinkaga hayaa. qodobada ayaynu saakay barnaamijka subaxnimo ku faahfaahinaynaa. inta aanu ku jirno barnaamijka haddii warar cusub ay soo kordhaana waan idinla socodsiin doona. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan. subax wanaagsan. saakay waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 22 Abriil. waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeena subaxnimo iyadoo ay noo soo socdaan qodobo xiiso leh oo ay ka mid tahay sheeko la yaab leh oo ka dhacday xuduudka u dhaxeeya Gaza iyo Israa'iil. sheekadaasi aad ay u xiiso badan tahay way noo soo socotaa, laakiin marka hore waxaynu ku bilaabaynaa Iiraan iyo Mareykanka ayaa la sheegayaa inay horumaro waaweyn ka sameeyeen labadii kulan ee ay ku kala yeesheen Roma iyo Oman oo ay kaga hadlayeen arrinta hubka nuclear-ka looga shakisan yahay Iiraan inay samaysanayso. haddaba iyadoo sheekooyinkaasu ay socdaan ayaa dhanka kale waxaa la sheegayaa Israa'iil in walaac fara badan ay ka muujinayso horumarka la gaaray, oo macnaha Iiraan iyo Mareykanka isfahamkooda way ka xun tahay. waxay rabtaa lagu leeyahay in lagu kala tago meesha oo Trump uu bilaabo inuu duqeeyo iyaduna dhankeeda ka duqeyso oo xaaladu dhan isla holaacdo. sheeko waalana meesha ka jirta. haddaba marka xagee marka wax marayaan? maxaa soo kordhaya? horumarkan la sheegayo muxuu yahay? wixii laga qoraan idin hayaa. haddaba waxaa leeyahay sabtida soo socota loo ballansan yahay inay is arkaan ninka la yiraahdo Witkoff oo ergeyga Trump u qaabilsan gobolka bariga dhexe iyo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan wafuud ay kala hogaaminayaan magaalada Masqad caasimadda saldanada Oman. laakiin waxaa ka horeyn doonaan leeyahay shir kale oo Arbacada dhici doono loo malaynayo inuu ka dhacayo Geneva, Switzerland, halkaasoo guddiyo farsamo oo dhinacyada ah ay isku sii arki doonaan. haddaba labada dhinacba waxay muujinayaan in horumar la gaaray. haddaba horumarkaasu faahfaahin badan weli lagama bixinin, laakiin waxaa leeyahay isfaham fiican ayaa socda. toddobaadyada soo socdana heshiis weyna la gaari doonaa, iyadoo Mareykankuna la sheegayo inuu tanaasulaad badan u samayn doono Iiraanna iyaduna ay tanaasuli doonto. waxyaabo badan ayaa isku soo dhadhawaadaan le. inkastoo dhinacyadu ay ka gaabsanayaan ay leeyihiin faahfaahintu way soo bixi doontaa, laakiin sheekada la yaab kale waxay tahay Israa'iil warbaahinteeda ayaa waxay leedahay, weliba hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay leedahay walaac fara badan ee Israa'iil ka qabtaa sheekada. Mareykankuna wuxuu leeyahay war annaga sheekada ku jirna iska joog adiga. markaas waxay leedahay anigu walaacan ka qaba arrintan. Mareykanku inuu tanaasul badan sameeyo aan ka cabsanaya. oo tanaasul hadduu sameeyo tanaasul la'aan meesha marka la isugu imanayay. Iiraanna waxbay ka tanaasuleysaa, Mareykankuna waxbuu ka tanaasuli doonaa. marka walwalka haya iyo Israa'iil muxuu yahay? haddaba dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin Israa'iil waxay ka walwalsan tahay Mareykanka tanaasulkan ay ku celcelinayso inuu sameeyaa ka baqaynaa ah in nuclear-ka ay haysato la yiraahdo isaguna waa laga qaadaa gobolka, oo gobolku wuxuu noqon doonaa meel aan hub nuclear lahayn iyo maaragtay sheekooyin kale, iyo in diblomaasiyadii iyo xiriirkii uu soo ceshadaan Mareykanka iyo Iiraan, oo halkaa ay ku dhammaato qorshihii baalki Netanyahu iyo kooxdiisu ay maleegayeen muddo oo ahaa inay mar weeraraan Iiraan. waxaa dhanka kale iyana dadka kale ay qabaan fikrad kale oo taas xoogaa ka duwan oo ah in arrinta tanaasulka uu ka imanayo in Iiraan loo daayo nuclear-keeda
oo macnaha si nabadgelya midka ah ay samaysato oo korontada ka dhashato oo howlo badan ka qabsato laakiin hub aysan gaarsiinin laakiin nuclearkeeda caadiga u dhisnaado taasna wadna qabadka ugu weyn Israa'iil waa leeyahay markasta oo Iran ay u baahato hadhow hubay u bedelan kartaa marka dhowrka arimooda la isla dhexmaraya laakiin dhinacyadu wali wax sira oo ay faafiyeen oo ay media la wadaageen ma jirto laakiin waxaanu la arkayaa qaylada Israa'iil ka baxaysa la arkayaa marka wararkaas waa arki doonaa wixii ka soo kordha sheekadii cajiibka ahayd way noo soo socotaa sheeko la yaab leh baa aniga laftirkeyga waan la yaabay ayaa noo soo socoto ka dhacday xuduudka Gaza iyo Israa'iil laakiin markan waxaan ku hormaraynaa war cusub oo goordhow aan arkayo soo dhacay wuxuu leeyahay 720 qof oo xildhibaan ah oo dawladda Faransiiska baarlamaankeeda ku jira macnaha 720 xildhibaan oo baarlamaanka Faransiiska ku jira oo Israa'iil fiiso weydiistay toddobaadyo ka hor oo loo ogolaaday fiisihii la siiyay ayaa 48 saacadood markay ka dhiman tahay safarkooda ayay Israa'iil kansash manoo imaanaysaan tiri shalay oo 20 ahayd galinkii dambe inay baxaan ahayd waa laga kansalay fiisooyinkii wixii oo dhan way yaabeen sababtu maxay tahay leeyihiin Israa'iil marka waxay taagan tahay dadkanu Israa'iil ma jeclano ma imanayaan 720 xildhibaan oo xaqiiqa raadin u socday oo halka inay tagaan rabay oo Israa'iil inay la hadlamay xanaaqa maxay sababtu maxay tahay Netanyahu wuxuu u xanaaqsan yahay hadal uu sheegay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron muxuu ahaa Falastiin aqoonsan doona bisha June sidee u dhihi kartaa hadalkaas wax xildhibaan oo Faransiis xaqiisa nooga iman kara male 720 xildhibaan marka waxay yiraahdeen haddii naloo diiday dhib male saacadaha soo socda waxaan qaban doonaa shir jaraa'id waanu kaga hadli doono Israa'iil tacadiyada ay sameynayso iyo inay diidan tahay in wufuud caalami ah gaar ahaan reer galbeedka inay tagaan halka way diidad marka sheekadaas Faransiiska iyo Israa'iil way u tuuratay arikaana waa qasan yahay sheekadii wali waa noo soo socotaa laakiin waxaan ka hormarinaynaa arin kale oo muhiim ah oo soo korortay Xuutiyiintu waxay sheegeen in 12 qof ay markaa dhinteen dhowr iyo 30 kalena ay ku dhaawacmeen weeraro saacadihii la soo dhaafay Mareykanku ay ka geysteen magaalooyinka waaweyn ee waddanka Yemen oo ay ka mid tahay Sanca iyo gobolka Sacda iyo Ma'rib iyo meelo kale oo ay yiraahdeen halka ayaa duqeymo Mareykanku ka sameeyeen dhanka kale warbaahinta Xuutigu waxay ku celcelinayaan haddii la isku dayo weerar dhulka ah oo Mareykanka uu qorsheynayo in la eedi doono horeyna barnaamijyadeedu waxaan ugu sheegay kii xalay in markaa Sacuudiga iyo Imaaraadka digniin loo diray oo la yiri haddaad isku soo faragashataan arrimaha dhulka Mareykanku maleegayo oo Yemeniyiin aad soo habaysaan si ay noola diraan waxa idinku dhaco waa la yaabi doonaa marka maadaama Xuutigu ay arinka ku celcelinayaan waxa leeyahay qorshe Mareykanka uu maagan yahay waaye in weerar dhulka ah lagu dayo Xuutiga maadaama waxba looga qaadi waaye weeraradii cirka oo hubkoodii iyo waxoodii ay wali haystaan qodobka isaguna uu soo kordhay halka kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijkeena saakay aan idinku soo gudbinayo wuxuu yahay waxa la leeyahay saakay xalay saacadu markay ahayd 9 ama 21 markay ahayd xilliga dalka Masar xuduudka u dhaxeeya Israa'iil iyo Masar ciidamo Israa'iiliyiin oo halka roondo ku marayay in rasaas oo dal looga qaaday warbaahinta Israa'iil saaka way ka hadlayaan Israa'iil ciidankeedu waxay leeyihiin way dhacday arrinka laakiin wax isaabaada ama dhaawacyo ah oo na soo gaaray ma jiraan laakiin baaritaan aan ku haynaa waxa rasaasta nagu soo furay ma ciidanka Masaarida ma qolo kale meesha dhexe soo gashaa lama yaqaano Masaaridana ilaa hadda waxa leeyahay wax wara oo ay ka soo saartay arrinka ma jiro laakiin waxa leeyahay rasaas xoogan ayaa ciidanka Israa'iil la dhacay qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa sheekada qatarta ah ee soo korortay la yaabay ee ka dhacday xuduudka u dhaxeeya Gaza iyo Israa'iil saacadihii la soo dhaafay meel kasto aad naga daawanaysaan waa barnaamijkeeni subaxnimo saakay waa subaxnimo Isniin ah waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka subaxnimo ee saakay haddaba barnaamijka qaybta waxaan idinku hayaa arin la yaabay oo
dhacday sida la leeyahay saacadihii lasoo dhaafay. haddaba arrintan xaggee ka dhacday? wakaaladda wararka ee Anadol ayaa waxay soo xiganaysaa warbaahinta Israa'iil. saakay waxay leeyihiin 11 Israa'iiliyiin ah ayaa say u soo socdeen waxay u tageen ciidankii Israa'iil ee xuduudka waardiyeynayay. way ka dhuumanayaan, waxay rabaan Gaza inay galaan. waa la yaabay. Gaza baxay ka doonayaan. waa 11 Israa'iiliyiin ah. ciidankii Israa'iil markuu waxay yiraahdeen way soo qabteen 11kii. waa la xiray. su'aalaha la weydiiyey, waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah inkastoo faahfaahin badan ciidanku uusan ka bixin, laakiin warbaahintu ay leedahay nin walba sheeko gooni uu sheegay. maxaa ugu socotaa Gaza mid la yiri. markaasuu wuxuu yiri waxaa la ii sheegay kulaha in Gaza nimankii jooga ay baxeen oo yuhuuddu kala qaadanayso dhulkii Gaza. marka waxaan rabay inaan dhul meesha ka cabirto oo qabsado dhinaca xeebta maal inaan dhul ka qabsado. war adiga xagga u bax. war adiga maxaa u socotay? kuwa kale waxay leeyihiin annagu waxaan u soconnay waxaana la yiri maaragtay meesha Gaza la yiraahdo dadkii joogoo dhan marka halkaa way ku baaba'een. marka waxaan raadin rabnay dadkii yuhuudda ahaa ee la haystay iyo waxaan rabnay inaan soo aragno godadka dhulka hoostiisa la leeyahay wixii oo dhan maadaama dadkii baaba'een. war waxa kan maxay ahaayeen? kuwa kale marka soo booday. kuwa kale marka waxay yiraahdeen annagu maba naqaanba sababta ugu soconay. war maxaa ugu socoteen? ma naqaaneen. waa cabsanayn, qamriyaan ka dharagnay, waa iska soo baxnayba. waxay naga qabatay inaan Gaza aadno oon soo fiirsano sida diyaaraduhu wax u duqaynayaan. war waxaan maxay ahaayeen? 11koodii siday u baarayeen ciidanka oo wax walba u weydiinayeen way ku wareereen aliin. markii dambe waxaa la yiri waa la iska soo daayay 11kii. markaas qaarkood waxay leeyihiin maxaana loo celinaa kaale meeshaan galeynaa annaga meeshaan inaan soo fiirinaa rabnaa meeshaan waxa ka jira. war meeshaan ha isku tagin hadda qolo kalena la ka haystaa meesha ka joogay waa galeynaa. iyagii qasab lagu soo celiyay. waa la soo raacday. arrinka marka sheeko aad loola yaabay ahayd oo maaragtay warbaahinta Israa'iil ay aad uga hadlayso. waxaa leeyahay marka war faahfaahsan oo rasmi ah dhanka dawladda muusan ka soo bixin. dadka waxay ahaayeen waxa ay doonayeen waxa ay meesha inay u galaan ay rabeen. marka ciidanka Israa'iilna markii dambe baaritaanka ay ku sameeyeen waa iska sii daahiyeen leeyahay. nin walba oo iska wareersan, nin walba wax gooni uu ku hadlaa leeyahay oo intii la qabtay. marka sheekada waalan ayaynu barnaamijkeena subaxnimo saaka isniina ku soo gabagabeynaa. adinkana fakari aragti waxa qabtaan barnaamijka qaybta comments-ka fadlan noogu soo qora. sidoo kale haddaad nagu cusub tahay looba subscribe inaad ka samaysato YouTube channelkeena Nadaara TV. sidoo kale waxaad ku xirnaan doontaan oo aad follow ka samaysan kartaan haddaad ku cusub tahay page-ka aynu ku leenahay Facebook-ga ee Nadaara Show. fadlan barnaamijyada la gareeyo oo share gareys in badan oo naga mid ah barnaamijyada ay u gaaraan. ku xirnaa mar walba barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan inagoo mar walba idin la wadaagna macluumaadka iyo wararka aan idiin soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen. inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan